السلام عليكم داوديال maanta waxaan ku bari doonaa sidii aad u noqon lahayd youtuber ama muuqaal sameeye badanaa muuqaal sameyntu ama video editingku waxay ka mid tahay xirfadaha loogu jecel yahay bulshada dhexdeeda maanta waxaan isku dayayaa inaan ku baro 5 app aad ku horumarin karto muuqaal sameyntaada ama youtuber inaad noqoto markaasi ka caawinayo ugu horeen youtube-kan subscribe noo saar kusoo dhawo muuqaalkeena maanta shantan apps waxay ka caawin karaan inaad noqoto video editor ama muuqaal sameeye application-ka koowaad waxa waaye CapCut waxay ka caawin kartaa inaad muuqaalkaaga ku edit gareyso markaasina aad ku soo darsato effectyo ama animation ama muuqaalkaaga aad ku qurxiso application-ka labaad waxa weeye voice recorder waxay ka caawinaysaa inaad cod ku soo duubto markaasina codkaaga uu noqdo cod qurux badan codkaaga waxaad ku qurxin kartaa meelal badan oo lagu qurxiyo codadka application-ka saddexaad waxa weeye Pixlr ayadana waxay ka caawin kartaa inaad thumbnail markaasi aad ku soo sameyso Pixlr waa application-ka afraad oo markaasi ayadana thumbnail-kaaga aad ku qurxin karto waxyaabo badan aad ku darsan karto application-ka shanaad waa YouTube haday waxaan ku dhahay si aad u noqoto youtuber application-ka shanaadna wuxuu noo noqon doonaa YouTube wuxuu ka caawinayaa inaad markaasi muuqaalkii aad soo edit gareysay aad ku baahin karto ama bulsho badan aad markaasi meesha ugu bandhigi karto haddii aynu gaarno 500 oo subscribe waxaan bilaabi doonaa course free haddii aad muuqaalkan waxuna aad ka faa'iiday waxaan ka codsanaa in YouTube-kan subscribe noo saarto videogaana aad like saarto waxaan bilaabi doonaa course free aan markaasi kugu bari doono video editing hadii aad u baahan tahay inaad barato video editing-ka ama muuqaal sameynta hadaba waxaan ku bilaabi doonaa course free si aad ugu mid noqoto course-kaas waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarkan shaashada kaaga muuqdo